magacayga Cabdicays baa la yiraahdaa magaaladaana ku dhashay muddo 50 sano ka hor ku dhow askari waa bay xeradaana ku dhashay ciidanka waa mahadsantiin waa ku dhawaa waxa la hooyo macaan waa ku jeclahay waxa way aniga riyadeedii koowaad iyo labaad iyo saddexaad waan rumeeyay adigoo nool inaad magaaladii aan ku dhashay adigu dhashay hooyo macaan aan soo arkay farinteedana waa ku soo gudbinaya oo aan ku duceeyay Ilaahay cimri dheer iyo caafimaad baa ku siiyo anigana maanta maaliga farxad badan mal alxamdulillah way baan haytay booqasho hambaarsan xasuus iyo taariikh qoto dheer in alfanaan Cabdicasiis Iskalaaji Yuusufseeda degmada Waajid ee gobolka Bakool meelaaseen oo ka dhaladay isla markaasina ka duugan xuduntiisa Cabdicasiis Iskalaaji safarshay booqashada oo ka tilmaamay dareen gaar ah leh maadaama uu kormeerka suubi goobo taariikhi ee degmada gaar ahaan meel deganaan ciidamada dawladii xilligii kacaanka meelaaseen oo shay ku tirsanay ciidamada qalabkooda waana ka shaqeeyay jiray أنا ماشي عند جرين ما جرين لكن حرادة أنا تان جرين وياه سلاكيش أباي sida la xaqiijiyay aw shay alfanaan Iskalaaji hay askari ku tirsan dawladda xilligii kacaanka weybana waajida oo ku mid haytay goobo shaqadiis muhiimka ah taasina way bay sababtay in Cabdicasiis Iskalaaji ka dhalada degmada Waajid ee gobolka Bakool inkastoo geeka alfanaan Cabdicasiis Iskalaaji sideeri daada 50 sano hatana booqashiis Waajid way bay muujiyay xiriir qoto dheer oo ku dhahay qofka iyo meeluusa ka dhaladay way banase gaar oo soo booqday goobo taariikhda ee degmada Waajida meelaaseen isla marhaantaasay taariikh facweyn oo kale usana reedan milay sidii waayay hora iyo xasuustii qoyska Kiijaya Iskalaaji wayba shacabka degmada Waajid ee gobolka Bakool oo soo wadaagay in uu ka dhaladay degmadu 50 sano kale oo reedan ka nagaday qurbaan aade fanaan Soomaaliyeed baan noqday waa soo noqday magaalada aan ku dhashay baan imi maanta saasaan idinku soo booqday dalka dadkan fiirinaya waa mahadsantiin waa ku dhawaa Soomaaliya ka dhawaw ما شاء الله السلام عليكم سيليا في عنتين magacayga Cabdicays baa la yiraahdaa magaaladaana ku dhashay muddo 50 sano ka hor ku dhow hadayna magaalada soo boqdo farxad gooni ay tahay saasaan oo marka waana idin salaamaya waa dhawaa alxamdulillah qurbaan ka yimi mareykan baan ka yiminaa halkaan imaado meeshaan ku dhashay aan tago way banu samay TV son kuramay taariikhda facweyn oo degmadu ka leey oo soo ku duwanta degmooyin kale ee Soomaaliya waxaan joogaa Waajid oo xudunteeda ay ku aasan tahay meeshaan ku dhashay ah waxaan joogaa ceelka loogu magac daray ceel Afweyne ceelkaanu taariikh dheer ayuu leeyahay astaamo gooni iyo calaamado gooniyana waa leeyahay waa magaaladan Waajid ceelka loogu magac daray weeye ceelkii xoolaha iyo dadkuba ay ku noolaayeen iyo beerahan laga waraabin jiray weeye muddo hal qarni laga joogay ka badanba hadii intaan xasuusnahay taariikh gooni ay tahay maalin farxadeed bay tahay meelo badan oo Waajid ah ama kamida Waajid ayaan rabaa inaan booqdo waxay kala Waajid saldhig u tahay afar state oo kala duwan oo mid walba u jirto 90 kilomitir ama ha noqoto Baydhabo ama ha noqoto Ethiopia ama ha noqoto Xudur ama ha noqoto Gado waa very strategic taariikh badanna way leedahay magaalada diversity ummadda Soomaaliyeed waliba dadka askarta u badnaa dad badan baa dib curasho ku yimi anigu halkaan ku dhashay aabahay halkaan askari ka ah xeradan aan booqan doono ayaan ku dhashay waxaan magaaladan ugu qareemayaa dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Koonfur Galbeed in dadkan goobta ah baahiyahooda iyo waxay tabanayaan oo dhan loo qabto hadda ceelkan waa ceel facweyn waa ceel taariikh badan leh wuxuu u baahan yahay nadaafad in la nadiifiyo in la clean gareeyo in si fiican loo sanitize gareeyo oo la dhowro ayuu u baahan yahay maxaa yeelay barika ma dadku biyaha haystaan laakiin barika ma wax kasta dhici kara dib biyaha loo nadiifiyo oo la dhowro dadku waa ku badbaadi karaan hadii hadda waqti abaar xun baa jirta
dadku way cabbi karaan way ku qubaysan karaan cuntada karsan karaan meelo badan baan tegaynaa waa mahadsantiin waxaa halkan igu soo dhaweeyey oo sababteeda iska lahaa inaan imaado oon ugu mahadnaqayaa xildhibaan Dr. Cabdirashiid Jilay oo leeyahay waa mahadsantahay boqol walaalkayow inaan 50 sano ku dhawaad aan ku soo noqdo iyadoo marxaladda iyo waqtiga aan ognahay cakiran iyo Soomaaliya qof walba meesha uu maanta joogo oo ku nool yahay inaan maanta magaalada aan ku dhashay xuduntaydu ahayd aan imaado waan ku soo noqon doonaa dadkaygii weeye waa deegaankaygii taariikh bay ii tahay meesha aan joogaa waa xerada ciidanka militariga Soomaaliyeed aan ku dhashay waan u mahadnaqayaa hooyaday aabahay waa dhintay Allah u naxariisto hooyaday baa nool iyada ay sheegtay aan weydiiyay haddana waxaan filayaa hooyaday maanta inay farxadaheedii iyadoo nool aan magaalada ay ku dhashay aan ku calool galay aan arkay aan tagay nabadgelyo aan ku tagay dal iyo dad fiican aan u tagay laakiin tabasho badan ay jirto magaalada waa magaalo istiraatiijiya dawladda Soomaaliyeed iyo koonfur galbeed iyo caalamka iyo deeq bixiyaasha ee meel walba ama dadka u dhashay deegaankan ee qurba joogta ah waxaan leeyahay waaji taariikh dheer bay leedahay u soo gurmada magaalada waa magaalo far istiraatiijiga san markii hore idin sheegay airport caalami leedahay airportka in dib loo dhiso waa magaalo u jirta 90 kilomitir 4 goobood oo mid ay tahay Baydhabo caasimadda koonfur galbeed mid ay tahay Ethiopia mid ay tahay Xudur oo halkaana midna ay tahay Gado wadooyin buu baahan tahay dad bisil oo gob ah waliba magaalada intaas laamiga u jirta marka dad doorashooyinku socdeen dimuqraadiyiinta ah magaalada ugu dadka badneed bay noqotay macna dadkeedu waa dad dawlad ku nool ah laakiin waa jirtay waqti ay waajid ahayd center of maaragtay koonfur galbeed oo dhan oo macaawinada ama bahalkinada lagu hirto hasa ahaatad waxaa ka dameeyey wax badan oo dayaca waana gaari waa garan karaa Soomaaliya meelo badan baa gaari waayaa jira marka waxaan ka codsanayaa dadka u dhashay koonfur galbeed khaasatan reer waajid iyo waaxigeeda ee qurba joogta meel walba ay joogaan anigoo maanta 50 sano ka bacdi maanta 50 jir inaan magaalada aan ku dhashay dib ugu soo noqday raxmad ilaahay way ilaahay igu sameeyay waan ugu xamdinaqayaa wixii karaamkaygana waa ka geysanayaa hadii la haydmo intiina kalan saasaan idin leeyahay Dr. Cabdirashiid Jilay waxa leeyahay ilaahay maaragtay khayr iyo caafimaad ka siiyo dhalinyarada iyo ciidanka iyo maaragtay dadka deegaanka iyo maaragtay mas'uuliyiinta iyo cuqaasha idinkana waxaan ku dhiirigelinayaa dalkeena iyo deegaankeena ilaashada Soomaaliya waxa wada leedahay waxna waa ka leedahay nin walba deegaan buu dhashay aniga xudunteeda nin walba xuduntiisa meesha tooyta أنا هالكان وادين لا دفاعية قربا يدين نقوني وحي كرامكيغا وحي تبشوينا وقد بني هدي لهيدمو واد ما سنتي مليون تايمز تاريخ هويدي وانا هالكان وحلي هوي معا وكتش على هاي وحاوي يعني ريادي دي كواد إلا بعد استحاد وان رميي أديقو نول إناد مقالدي عن كل الشيء أديقو الشيء هوي معنا عن سواركي فرنتي إذا وكوسو قد بني وانا كود دعيني لا عمر عافمات باكو سيو أنا قرد ما أنت ماليقا فرحات بدن مالا الحمد لله safarkun taariikheed wayba uusan haay mid xambaarsan fariin ka saabsan muhiimadda ta in la xasuusado asalka waa aan la ilaaliyo taariikhda dhalashada maadaama ay qayb ku ah aqoonsiga jiritaanka bulshada Faisal Xuseen My TV degmada Waajid ee gobolka Bakool.